Assalaamu calaykum. Ku soo dhowaada xalqadda 11aad ee taxanaha Falastiin. Xalqadani waa dulmar guud oo ku saabsan magaalada Qudus iyo Masjidul Aqsa. Ma jirto warbaahin ka hadasha xaaladda Falastiin oo aan xusnin Qudus ama aan soo bandhigin guud marka baraheeda barakaysan. Magaalada Qudus waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu faca weyn dunida, oo mid barakaysan u wada ah saddexda diimood ee ugu waaweyn Ibraahimiyada ee Islaamka, Masiixiyadda iyo Yuhuudda. Waana magaalo Yuhuudda iyo Falastiiniintuba ay sheegtaan inay tahay caasimadooda, waana xudunta khilaafka. Xaqiiqdii, intifaadadii Masjidka Al-Aqsa waxay makhraati ka noqotay qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu foosha xumaa ee uu dhiig ku daato taariikhda khilaafkan jiil jirsaday. Intifaadadan waxay ka bilaabatay kadib markii ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil, Ariel Sharon, oo markaa ahaa hogaamiyihii mucaaradka, uu galay Masaajidka Al-Aqsa 28 Sebteembar sanadkii 2000, isaga oo ay ilaalinayeen 2,000 oo askarta Israa'iil ah. Ariel Sharon wuxuu si cad u diidanaa shacabka Muslimiinta maxalliga ah iyo Muslimiinta adduunka oo dhan inay galaan Masjidul Aqsa. Cidda maamulaysa magaalada la haysto ee Qudus waxay ahayd arrin muujisay wadahadalladii nabdeed ee ugu muddada dheeraa ee lagu qabtay Camp David, una dhexeeyay hogaamiyihii geeriyooday ee Falastiin, Yaasir Carafaad, iyo ra'iisul wasaarihii xisbigii shaqaalaha Israa'iil, Ehud Barak, kaas oo u fududeeyay madaxweynihii Mareykanka xilliga ah ee Bill Clinton. Natiijada wadahadalladan oo muddo 2 toddobaad ah socday waxay soo hooyeen guuldarro taariikhi ah kadib markii la isku mari waayay masiirka magaalada Qudus, waxaana sidaa ku dhammaaday geedi socodkii nabadda. Magaalada Qudus. Al-Qudus waa magaceeda afka Carabiga ah oo micnihiisu yahay barakaysnaan. Waa magaalo cajaa'ib leh oo ku taalla meel 55 kiiloomitir oo laba jibaaran u jirta badda Mediterranean-ka, waxayna 22 kiiloomitir oo laba jibaaran u jirtaa badda dhimatay. Magaalada Qudus jooggeedu heerka badda wuxuu ka sarreeyaa 720 ilaa 800 oo mitir. Waa mid ka mid ah magaalooyinka farakutiriska ah ee hela cimilada jawiga buuraleyda ah ee neecawda badda ku hareeraysan leh. Qudus, dhagaxaanta dhismayaasheeda qadiimiga ahi waxay ka sheekeeyaan sheekooyinka 5,000 oo sano ee ilbaxnimada aadamaha ee ay ku lug lahaayeen malaayiin dad, halganno, jacayl, nacayb iyo caqiidooyin. Waxaa ku yaalla qaar ka mid ah meelaha barakaysan ee ugu waaweyn diimaha Islaamka, Masiixiyadda iyo Yuhuudda. Marka aynu soo koobno, magaalada Qudus waa halka ay ku urursan tahay barakaysnaanta dhulka Falastiin. Baraha Qudus. Qudus waxay ka kooban tahay 2 qaybood oo waaweyn, kuwaas oo kala ah Bariga Qudus iyo Galbeedka Qudus. Bariga Qudus wuxuu ka kooban yahay inta badan goobo taariikheedyada diimeed, waana Qudustii qadiimiga ahayd iyo hareeraheeda. Qudustii qadiimiga ahayd waxaa gebi ahaanba ku hareeraysan gidaarro loo dhisay in lagu ilaaliyo, waxayna leedahay 8 albaab, kuwaas oo kala ah Baabul Khaliil, Baabul Jadiid, Baabul Caamuud, Baabul Zaahira, Baabul Asbaad, Baabul Maqribiyi, Baabul Raxma iyo Baabul Nebi Daa'uud. Galbeedka Qudus waxay ka mid noqotay dhulkii ay Israa'iil qabsatay kadib dagaalkii 1948, waxaana loo dhisay qaabka magaalooyinka casriga ah. Bariga Qudus waxaa ku hareeraysan kaymo buuro leh oo Israa'iil ay ka dhistay degsiimooyin kala duwan. Qaybaha ugu muhiimsan ee Al-Qudus marka laga reebo xuduntii magaalada waa Shufcaad, Sheekh Jarraax iyo Waadi Jawsi. Taariikhda magaalada Qudus. Aasaasidii iyo imaatinkii Yuhuudda. Magaalada Qudus waxaa markii ugu horreysay dhisay reer Yaabus oo ka mid ahaa Kancaaniyiintii Semiitiga ee noolaa qiyaastii 3,000 oo sano Nebi Ciise hortii. Magaalada Qudus markii hore waxaa loogu yeedhi jiray Yaabus, markii dambena waxaa loo bixiyey Yerusaalema, oo la rumaysan yahay inay ka dhigan tahay magaalada nabadda. Si kastaba ha noqotee, aragti kale ayaa ku adkaysata in loogu magac daray mid ka mid ah ilaahyadii reer Kancaan oo lagu magacaabi jiray Selem. Magacan oo hab-qoraaleedkiisa iyo dhawaaqiisuba isbedbedelay xilliyadii ay magaalada ka talin jireen Cibraaniyiintii, Masaaridii hore iyo Griigii, ilaa ay Farankiskii yimaadeen oo magacii magaaladuna uu noqday Jerusalem. Magaalada Qudus waxay ku sii hoos jirtay
xukunkii reer Kancaan ilaa ay Yuhuuddu ka qabsatay sanadkii 997 Nebi Ciise hortii. Nebi Daa'ud calayhi salaam wuxuu Qudus ka dhigay caasimadiisii koowaad ee soo raacday magaalada Khaliil. Magaalada Qudus waxay ku hoos jirtay xukunkii Nebi Daa'ud iyo wiilkiisii Sulaymaan, nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, ilaa boqortooyadoodii loo kala qaybiyey laba, boqortooyadii Israa'iil oo Shekem iyo Samaariyo caasimada u kala noqdeen, iyo boqortooyadii Yuhuudda oo ay magaalo madax u ahayd Jerusalem. Waxayna magaalada Qudus ku sii hoos jirtay xukunkii boqortooyadii Yuhuudda ilaa sanadkii 586 Nebi Ciise hortii. Markii Nebukadnesar uu qabsaday magaalada Qudus, wuxuu adoonsaday 50,000 oo Yuhuud ah. Intaa kadib, Jerusalem waxaa lagu daray boqortooyadii Bershiya intii u dhaxaysay sanadadii 539 ilaa 332 Nebi Ciise hortii, taas oo u ogolaatay Yuhuuddu inay aas-aastaan nooc ismaamul oo u gaar ah. Kadib markii uu dhacay Alexanderkii Weynaa, magaalada Qudus waxay ku sii hoos jirtay xukunkii Helenistiga oo u ogolaaday Yuhuudda inay samaystaan ismaamul madax bannaan oo ka arrimiya magaalada Qudus, maadaama Yuhuuddu ay sameeyeen kacdoonno ay kaga hor yimaadeen taliyayaashii Giriigga. Makaabiyiintii ayaa noqday amiiradii Qudus intii u dhaxaysay sanadkii 141 ilaa 37 Nebi Ciise hortii, waxayna geysteen xasuuqyo aad u ba'an si ay dadka ugu khasbaan inay qaataan diinta Yuhuudda. Taliyihii Roomaanka ee Herod intii u dhaxaysay 37 ilaa sanadkii 4 Nebi Ciise hortii, oo qaatay diinta Yuhuudda, wuxuu dib u dhisay macbadkii Sulaymaan si uu sumcad ugu yeesho Yuhuudda dhexdeeda. Herod wuxuu kaloo dilay Nebi Yaxye iyo aabbihii Sakariya, nabadgelyo korkooda ha ahaatee. Yuhuuddu waxay dhowr jeer kacdoonno kaga hor yimaadeen xukunkii Roomaanka sanadkii 66 ee taariikhda miilaadiga, laakiin kacdoonkoodii waxaa si arxan darro ah u burburiyey Titus oo dhulka la simay macbadkii Sulaymaan. Sanadkii 135 taariikhda miilaadiga, Yuhuuddu waxay qaadeen kacdoonkoodii ugu dambeeyey, iyadoo imbaradoorkii xilliga oo lagu magacaabi jiray Hadrian uu gebi ahaanba burburiyey magaaladii Jerusalem, wuxuuna magaalo cusub ka dul dhisay burburkeedii, isagoo magacii magaalada Jerusalemna u bedelay Aelia Capitolina, wuxuuna taajkii Jupiter dul saaray burburkii macbadkii Herod. Tan iyo waagaa wixii ka dambeeyey, Yuhuuddu weligood maamul kama aysan dhisin magaalada Qudus. Xilliyadii Masiixiyiinta iyo Muslimiinta ee magaalada Qudus, imbaradoorkii Roomaanka Constantine wuxuu qaatay diinta Kiristaanka, wuxuuna booqday Falastiin. Hooyadiis oo lagu magacaabi jiray Helena waxay dhistay kaniisadda Qiyaama, kaniisadda Xabaashii barakaysnayd sare kicinta, iyo kaniisadda Mahdi ama dhalashada. Magaalada Qudus ayaa xilligaa ku hoos jirtay xukunkii Byzantine. Inta badan dadka maxalliga ahna waxay qaateen diinta Kiristaanka ilaa ay Muslimiintu ka furteen magaalada Qudus. Intaa kadib, waxaa si nabad ah ku wareejiyey furayaashii Qudus batriiqii mas'uulka ka ahaa magaalada oo lagu magacaabi jiray Sophronius, wuxuuna furayaashii magaalada ku wareejiyey khaliifkii Muslimiinta ee Cumar ibnul Khadaab. Wareejintaas oo noqotay midda keliya ee sida nabadda ah ku dhacday taariikhda dheer ee magaalada Qudus. Khaliif Cumar iyo batriiqii waxay kala saxiixdeen heshiiska loo yaqaano Axdiga Cumar. Heshiiskaas oo dadkii Masiixiyiinta ahaa ee magaalada Qudus ku noolaa ay ku heleen xuquuqdoodii deganaanshiyaha iyo xorriyadda cibaadada, loona ogolaaday inay goobihii ay aaminsanaayeen inay yihiin baro barakaysan ee ay gacanta ku hayeen ay si xor ah ugu qabsan karaan dhammaan cibaadooyinkooda diiniga ah. Dadkii reer Byzantine ee magaalada Qudus deganaa waxaa la kala dooransiiyey 2 ikhtiyaar oo kala ahaa inay si nabadgelyo ah dib ugu noqdaan dhulkoodii, ama ay hub la'aan ku noolaadaan magaalada Qudus oo ay halkaa ka sii wataan noloshoodii caadiga ahayd. Magaalada Qudus xilligii ay Muslimiintu gacanta ku hayeen magaaladu waa ay barwaaqowday, waxayna noqotay xarun ilbaxnimo. Qaar ka mid ah dhismayaasha ugu wanaagsan adduunka ee naqshadaysan ayaa laga dhisay, oo uu ku jiro The Dome of the Rock, qudbiga dhagaxa, oo uu dhisay khaliifkii Umayyiyiinta ee Cabdulmaalik ibnu Marwaan intii u dhaxaysay sanadkii 68
ilaa sanadkii 72 ee taariikhda hijriyada, una dhigan 688 ilaa 691 taariikhda miilaadiga. Muslimiintu waxay magaaladan u bixiyeen magaceeda cusub ee Al-Qudus ama Baytulmaqdis. Xalqadanna maanta intaa ayay nooga eg tahay. Si aad u wada daawato dhammaan xalqadaha taxanaha Falastiin, fadlan booqo playlistiga uu ku qoran yahay taxanaha Falastiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.